أنت أنا دكتور مختار محمد سيدة halkan waxaan ku qaatay shahaadadii murashaxnimada ummadda Soomaaliyeed halkan waxaan salaan uga dirayaa bahda saxaafada gudida doorashooyinka dhammaan ummadda Soomaaliyeed adduunka meel ay ka joogto anigoo Dr. Mukhtaar Maxamed Sayida maanta waxaan insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala an ummadda Soomaaliyeed u weydiiyay in la naga aqbalo Ramadaankii ciid mubaarak kulli caam antum bikhair baan leenahay waxaan rajaynayaa doorasho sax ah oo xalaal ah oo amni ah inay ka dhacdo dalkeena duruufo adag buu marayaa dalkaas in la badbaadiyo oo nabadgeliyo iyo amni iyo istiqraar Soomaaliya barwaaqo ah oo walaalo ah oo xor ah oo khayraadkeeda qaybsata oo xalaal oo walaalo ah ayaan rabnaa anigu maanta waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa halkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu ikraamay inaan hortiina soo istaagno waxaan ballan qaadaynaa haddii Ilaahay nagu ikraamo inaan ummadda ciisadeeda ku soo celino iyo sharafteeda iyo haybadeedii intaas baan hadalka ku soo koobaynaa